ciidamada ammaanka maamulka degmada Berdaale ee gobolka Baay ayaa deegaano hoos yimaada degmadaasi Berdaale ka bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxda shabaab isla markaasna lagu wacyigelinayo dadka deegaanka sida ay ku waramayaan mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi. Howlgalkan waxa ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka degmada Berdaale deegaano dhowr ah oo ku dhow degmada Berdaale. Gudoomiyaha degmada Berdaale ee gobolka Baay Maxamed Isaaq Aracase ayaa barkulan uga waramay deegaano haatan ay howlgalladu ka sameeyeen iyo ujeedada ay ka leeyihiin. halkaas ka jaaran wasiirka kayaan boram warqasaara warwaraaba sidoo kale shacabka le waxay geliyaan in wadanka dawladku darta nimanka nabadgelyada ilaaliyaalka inay waqti dhamaado ilaa nusqaasada shacabka maartay dawladdu nindeersi farmada dawladdu nindeersi haleenka herin gobol fadhibaarday shaqada la waafaqay fadhiyaasha kale shacabka. wuxuu sidoo kale gudoomiyaha degmada Berdaale ee gobolka Baay Maxamed Isaaq Aracase uu sheegay in al-shabaab muddo dhowr jeer ay kula dagaalameen deegaano Berdaale ka tirsan xilligana ay yaraatay awoodda degmadu ay ku leeyihiin sidaa darteedna howlgalkan haatan uu yahay mid lagu wacyigelinayo bulshada deegaanadaasi ku nool. deegaanku waa degmada Berdaale oo dhowr baaje deegaano kala galnay deegaanka ma xaduudka gobolka Baay leeyahay marka la dagaalamay Kambakool Baay leeyahay marka la dagaalamay oo degmada isku dheerayna marka walba maalaysa daro tuuyaanka gobolka Kendow jiraan washa shaqada muddo dheerow anadna waa howlgalkuna duwadna wacyigelin salidii waa deegaanka degmada agaarsiga waana mala dowladda arti waa deegaanka shabaab dheeraad oo ka sareysa deegaanka maro qaniyo ka fujisay leeyahay nimantu wadada deegaanka isku raadna fikirayaan umay ku guuleysay amniga nimantu wala dagaalan isku gaarina gambada ka kooban marka nimantu waa ifadkeen ko la kun la afar famay akjeedne akina la baan ka tuujalka ka wariya tabirka garay marka ma waa nimantu isku gaaray amaanka degmada Berdaale boqol dheer koro. mar aan weydiiyay gudoomiyaha degmada Berdaale ee gobolka Baay Maxamed Isaaq Aracase in howlgalku ay qayb ka yihiin ciidamada dawladda Itoobiya ee degmadaasi fariisinka ku leh ayuu ii sheegay inaanay ka jirin degmada Berdaale awood shabaab oo ciidanka Itoobiya loo kaashado. ayo ogaado Itoobiya ku baahan degmada agaarsi maro aan ka Soomaaliya unida ciidamada xoogga Soomaaliyeed degmada iyo maamulka ka filan awoodii oo deegaanka shabaab oo deegaanka roogdina male laakiin wuxuu yahay dawladda martin mirkasta sida dawladda ama sababta dadka mirkasta dawladda Itoobiya degmada qasadaari badbaadiya karta kaayta shaqada waa shaqeyn weyn oo dhaxayta laakiin tan wacyigelinta iyo kormeerka diiwaanka kamaraha oo ciidamada xoogga Soomaaliyeed ka filan si kastoo ay ahaataba degmada Berdaale ee gobolka Baay ammaankeeda waxaa sugaya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawladda Itoobiya oo halkaasi fariisin weyn ku leh waxaana degmada Berdaale ee gobolka Baay lagu tiriyaa meelaha ugu ammaanka fiican gobolka Baay. Cabduqaadir Barre Macallin, Baydhabo.